فيتامين B12 wuxuu ka mid yahay fitamiinada asaasiga u ah jirka. Wuxuu ka qayb qaataa shaqada wadnaha, shaqada neerfayaasha, samayska unugyada dhiigga cascas iyo DNA-da. Sidaa awgeed, dadka uu ku yaraado fitamiinkan waxay isku arkaan astaamo la xiriira habdhisyada jirka uu saameeyo, sida dhiig la'aan, neerfa xanuun, hilmaan badan, wadne xanuun iyo isku dhexyaac. Sidoo kale, hooyada uu ku yar yahay fitamiin B12 hadday uur qaaddo waxaa bata jaaniska ah inay dhasho ilmo iin leh ama dhiman. Fitamiinkan wuxuu yaraadaa haddii ay jirto nafaqo darro, dadka khudradda kaliya ku nool, iyo bukaanada joogteeyo qaadashada daawooyinka gaaska iyo daawada macaanka ee metformin. Fitamiin B12 waxaa laga helaa xoolaha iyo wixii la xiriira, waana sababta dadka cagaarka kaliya cuna ee vegan-ka ah uu fitamiinkan ugu yaraado. Cunnooyinka ugu badan ee laga helo fitamiinkan waa hilibka xoolaha oo idil, kalluunka noocyadiisa kala duwan, ukunta iyo caanaha. Fitamiinkan hadduu kugu yaraado waxaa la isku arkaa wareer, diiqad, hilmaan badan, caajis, madax xanuun, wax xifdin la'aan iyo kabuubyo jirka ah. Fitamiin B12 waxaa loo qaadan karaa kaniini ahaan iyo cirbad ahaan, taasoo ay ku xiran tahay heerka uu marayo yaraanshihiisa. Fadlan faafi casharkan, waana mahadsantahay.